hadda aabbaha Alekia si uu gabadhiisa u farxad geliyo ayuu dhammaan lacagtii uu kaydsaday ku bixiyaa wuxuuna u soo iibiyaa iskuuti cusub. Markay taas aragto hooyada Alekia aad bay ugu xanaaqdaa ninkeeda. Markaas aabbaha Alekia wuxuu hooyadeed ku yiraahdaa iyadu waa gabadhayda qaaliga sidaas darteed wax walba ayaan u qabanayaa. Hadalkaas markay maqasho hooyada Alekia way yara shucuuraysaa. Laakiin dhanka kale Alekia marka ay hesho iskuutiga isla markiiba waxay u tagtaa Rohit. Labadooduba aad bay u farxaan waxayna bannaanka u baxaan iyagoo dhex mushaaxaya oo si weyn u raaxaysanaya. Maalmo yar kadib hooyada Alekia waxay la baxdaa ehelkeeda si ay suuq uga soo iibsato dahab. Fursaddaas ayay Alekia ka faa'iidaysataa marka hore albaabka guriga ayay xirtaa kadibna Rohit ayay qolka ugu yeertaa. Markuu Rohit yimaado marka hore wuxuu Alekia siiyaa shukulaato kadibna wuxuu isku dayaa inuu u dhowaado. Dhanka kale hooyada Alekia lacag uma hayso inay dahabka ku soo iibsato. Sidaas darteed marar badan ayay wacdaa aabbaha Alekia iyadoo ka codsanaysa inuu sayidkiisa ka soo amaahdo lacag. Aabbaha Alekia oo qasban ayaa u taga sayidkiisa wuxuuna si dib leh u soo helaa lacag ugu dambayna waqtigii ugu dambeeyay ayuu xaaskiisa gaarsiiyaa. Laakiin dhinacan Alekia iyo Rohit marka ay isu diyaarinayaan inay wada ciyaaraan ludo ayaa si lama filaan ah deriska u dhow yimaada oo gambaleelka garaaca. Markay taas maqlaan Alekia iyo Rohit labadooduba aad bay u argagaxaan isla daqiiqadaasna jacaylkoodii waa istaaga.